wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug oo hogaaminaya gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka Galmudug xildhibaan Xasan Yare ayaa soo gaaray deegaanka Cade Kabiir oo hoos yimaada degmada Baxdo kana mid ah meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada deegaanka is abaabulay mas'uuliyiintan oo waday agabyo kala duwan oo u badan raashin iyo sidoo kale 5 neef oo geela oo ay ugu talagaleen inay ku dhiirigeliyaan ciidamada jiidoor ku sugan ayaa ku wareejiyay saraakiisha ka socda dawladda federaalka Soomaaliya ee horkacaya howlgaladan ee toddobaadii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanadan xildhibaan Xasan Yare oo ah gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka Galmudug oo horkacay wafdigan iyo sidoo kale xildhibaan Gure Geesi ayaa waraan la hadla saxaafadda iyagoo saraakiisha ciidamada ku wareejiyay agabkan iyo sidoo kale xoolahan oo gaaraya 5 neef oo geel ah iyagoo sheegay in markasta ay ka warqabi doonaan ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha ku jira dagaalka ka dhanka argagixisada waxaan u nimid inaan dadka walaalaha oo halkan joogo oo saraakiishu ay hogaaminayaan inaan kala qayb qaadanno dhibka ka jira meeshan oo ummadan Soomaaliyeed meeshan ku haya oo dhibaatadaas ay geysteen dadka manaxyaalka oo ummadda aan u naxayn inaan kala qayb qaadanno u nimid sidaa darteed maanta waxaanu keennay geel iyo raashin aan keennay geelaas iyo raashinka waxaan wakiil uga nahay baarlamaanka Galmudug ayaa wakiil uga nahay ayagaanu ka wadnaa waxaanu rabnaa ayagoo wuxuu aysan badnayn oo aanu rabno inaysan intii ugu horreeyday uguna dambaysay inaysan noqon oo aanu doonayno haddana baarlamaanka Galmudug inaan ku laabanno ayaguna diyaar ay u yihiin wax kasta oo dhaca oo ka jira deegaanka Galmudug inay waxay ku bixi lahaayeen ay ku bixiyaan fariintoodana aan ka wadno wakiil aan uga nahay intaana ay yiraahdeen hanala ka sii gaarsiiyo saraakiisha iyo maamulka deegaanka dhanka kale gudoomiyaha deegaanka Cade Kabiir Daahir Daawud Faarax iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa uga mahadceliyay sida ay maanta u soo booqdeen deegaanka Cade Kabiir iyo agabkan ay ugu talagaleen waxaan rabaa inaan mahadceliyo wasiirada iyo baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug iyo agaasimayaasha oo runtii na soo gaarsiiyay taageero garab istaag ah oo ay ugu talagaleen runtii inaan sidii ay nagu garab istaagaan sidii aan cadawgaas ummadda Soomaaliyeed iskaga celin lahayn runtii waan idinkaga mahadcelinaynaa horena waan noogu soo gurmateen haddana gurmadka labaad ee aad noo soo gurmateen iyo midka saddexaad waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan ilaahay idinkaga rajaynaynaa inuu bedel inta ka khayr badan idinkugu bedelo cadawgana ilaahay uu naga dul qaado waxaan u baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda deegaanada dawlad goboleedka Galmudug kuwa xorta iyo kuwa aan xorta ahaynba inay ka qayb qaataan oo na soo garab istaagaan marka hore waxaan mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala na garansiiyay inaan cadawga argagixisada al-shabaab la dagaalano iska celino na makaniyay deegaanada aan joogno haddana noogu daro inaan la dagaalano wax badan baa xoogaa dadku ayaa lagu kala aragti duunaa nimankan oo loo haystay dad caadi ah bini'aadan oo la noolaa karo laakiin waxa ku mahadsan Allah subhanahu wa ta'ala fashiliyay shacabkana fahamsiiyay inaysan ahayn ummad caadi ah oo la noolaa karo gudoomiyaha gaashaanle sare Xasan Abuukar Xasan Jaamici iyo sidoo kale gaashaanle sare Warsamo Gaabe iyo Suldaan Muuli Sheekh Jaamac oo iyaguna la hadlay saxaafadda ayaa ka mahadceliyay booqashada ay maanta ugu yimaadeen wafdigan saraakiisha iyo xildhibaanada iskugu jira ka socda Galmudug iyagoo kaga mahadceliyay agabkan kala duwan ee ka gudoomeen waxayna sheegeen in ayaguna ay sii wadi doonaan dadaalada ka dhanka ah ee lagu xoreynayo deegaanada uu cadawgu joogo sharaf weyn ay noo tahay in halkan noogu timaadaan nooguna keentaan raashinkan halkan ka muuqda ee quruxda badan iyo geela isaguna halkan taagan oo aad ugu tala gasheen inaad uga qayb qaadataan dib u xoreynta deegaankan ay khawaarijtu ku soo duushay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle waxaan rajaynaynaa in badan oo kalena inay idinku dayo doonto oo deegaankan u dhalatay oo iyaguna ka soo qayb geli doonaan dal iyo dibadba meeshay rabaan ha joogaane maadaama ay ku socoto arrintu isxilqaan nin naftiisa soo hura iyo nin maalkiisa soo hura iyo nin maskaxdiisa soo hura intaba waa la wada joogaa annaguna waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo in aan tallaabada aad naga sugaysaan oo aad ku faraxdaan annaguna aan qaadi doonno hadduu allah u ogolaado
waxaan ka gudoomaynaa insha Allah gurmadka isugu jira xoolaha iyo raashinka oo ay noo keeneen ayaan ka gudoomaynaa insha Allah haddii Allah awoodda ogolaado hadda ciidamada ku magacaabeen baaqa aan diraynaa wuxuu yahay baahidu inaysan ciidamada kaliya ahayn wadankan masiiba ka dhacday masiibo bini aadan baa ka dhacday dadkii waxa laga gubay ceelashii biyaha ay ka cabahayeen waxa laga gubay baraagihii baa laga gubay ay biyaha ka cabahayeen waxa laga gubay isgaarsiintii oo dhan baa laga gubay xoolahoodii baa laga dhacay dadkii baa laga wada xiray ayaa laga xirxirtay masiibo bini aadan baa ka dhacday meesha waa lagu dhibaataysan yahay waxaan u baaqaynaa oo aan u diraynaa wax alaale cidda ay qusayso iyo intii ka qayb qaadan karto dhan dadka shacabka in loo soo gurmado waxaan leenahay waa hil mas'uuliyadii iyo xilkii ahayeen ayay guteen marka dadka masaakiinta ah ee la dhibaateeyay ee cadawgaas caalamiga inay iska dhiciyaan raba cid allaale cidii noogu hilisa calaf iyo cod iyo nooc walba inoogu hilisa waxaan leenahay waanu hambalyeynaa laakiin maantay waxaan si gaar ah xildhibaanada reer Galmudug aan u leenahay kaalinkiinii waad mudantihiin maantay inaanu idin mahad celino oo idin ducayno xoolaha iyo alaabta keenteen raashinka ah Galmudug waxaa inta badan ka socda howlgallo ay abaabuleen dadka deegaanka isla markaasna ay horkacayaan saraakiil ka socda dawladda federaalka Soomaaliya kaasi oo lagu doonayo in lagu xoreeyo deegaanada uu cadawga xilligan ku sugan yahay